kulanti wanaagsan waa barnaamijkii barbaarta iyo beeraha waxaa maanta idinkaga imaanayaa qararka webi shabeelle dhexdood jilaal adag ayuu dalku ku jiraa sidaa darteed barnaamijyadeennu waxay xoogga saari doonaan abaaraha xaalufinta baahsan ee lagu hayo dhirta iyo waxa ka dhalan kara saadaasha cimilada iyo doorka ay ku leedahay ka hortegista abaaraha qorshaha looga gaashaaman karo abaaraha ee ay tahay inay dowladda iyo bulshaduba ka fekeraan barnaamijyadaasi oo bilaha soo socda aan baahin doonno waxaan ku bilaabi doonnaa guritaanka webi shabeelle waa xilli jilaal ah muqdisho ayaan koonfur uga baxnay safar gaaban kadib waxaan tagnay arlada webi shabeelle 4 xilli oo uu sanadku ka kooban yahay waxaa hadda uun la guda galay xilligii ay nolosha dadka iyo dunyaduba ay ugu adkayd waa bilo aysan roobabku tisdhihin cadceed kulul oo jirta darteedna balyadii xariirisnaa ay u guraan markii ay meesha xaaladdu marayso dadkii iyo xoolihii ka korreeyey webiga waxay u soo hayaami jireen jiinka webi shabeelle si ay muddada jilaalkaas lagu jiro iyaga iyo xoolahooduba uga cabbaan nasiib darraduse waxay tahay 3dii jilaal ee lasoo dhaafay oonley ayay ahaayeen dadka ku dhaqan jiinka webi shabeelle xoolihii maalin waliba u aroori jiray ayaa haraadsan oo kiliyadii qoyna ayaa qallalay dhirtii aadka ugu baahnayd waraabkana xididadu ma aysan nuugin waxaa saamaynta arrintaasi sharaxaad barbaarta iyo beeraha ka siiyey saciid maxamed nuur oo ah beeryaqaan bartay kuliyadda beeraha ee jaamacadda banaadir marka ugu horeysa horta webigan waxaa ku nool xoolo fara badan ilaa Soomaalida inteeda badan xoolo dhaqato waaye xoolo dhaqatadii coos ma haystaan mideeda kale ma haystaan maxaan ku iraahdaa biyo maadaama webiga uu baxay meesha waxa laga waayay sourcigii ama ishi laga heli lahay biyihii waxay u isticmaali jireen in ayaga cabaan xoolaha inay haystaan noloshooda inay ku maareeyaan waxay kaloo biyaha u isticmaali jireen xilliyada jilaalka markuu dhaco xulaleyda waxay sameeyay jirta beeray kiriisay jirta ama kuwa beeraha leh waxay sameeyay jireen biyaha webiga ma aragtay meel baas jar adii coos leh ama la waraabina coosa meesha ka soo baxay deetana xoolahooda siisanayaan taasi waa doorka webiga uu ku lahaa xoolo dhaqatada intaas waay maadaama webiga la baay marka doorkaas iyo hawshaas dhan uu hayaa meesha ka baxday hadaan u soo gudbo midda dadka webigan way ku dhaqnaayeen biyihiisa inay isticmaalaan inay cabaan ay u isticmaali jireen saa aragnay inta badan kiisas badan waxaa soo laabtay oo shuban biyood ah shuban biyoodka waxyaabaha dhaliyeen waxaa ka mid ah webiga biyihii laga waayay meelihii yaraa ee biyaha isugu soo urureen ee dadka waxay isku dayayeen inay meesha biyo ka cabaan meeshaas deetana waxaa ku dhalanaya microbes adiga ilma qabata iyo jeermis meesha ku qurmay haddii ay isticmaalaan shuban ay ku ridayeen dadkina ma haystaan alternative wax bedel u ah for example in ceelal ay helaan inay harab biyo ku jiro ay helaan marka taasina waxay caqabad ku noqotay ama saameyn ku yeelatay caafimaadka dadka xoolaha dhaqda ama dadka beeralayda naftirkooda dhanka beeriga aan u soo laabto marka qodobka 3aad saa aragnay hadda beerihi ani waxaan xogogaal u ahay oo jooga beeriyan dhex jooga traditionally oo beer waa ku dhex jiri jiray knowledge ahaanna waxaa waaye oo agriculture anaaba agronomist ah oo in badan aan kala socdaa biyihii baxay saameynta ku beeraha ay ku yeesheen waxaa ka mid ah dalagyada inta badan hadda dalagyada noo beernaa waxaa ka mid ah inta badan xumasta waxa ugu badnayd cerealska markaan ka hadlo dhanka galeyda masagada iyo maxaan ku raahdaa digirta galey hadda waxaan fiilaa dadka hadda qayladhaanta ay maraan dhigeysanay gudiga abaaraha qayladhaanta ay ku tala bixinay waxa waa abaara jirta dadka xoolaha wax laga hadlayo waxa waa mid hadda jirta aniga waxa waaye waxaan fiirinaa mid soo socoto seasonkan hadda off season oo naga noqday xilli aan wax la beeri karno noqday galeydii la fili lahaa inay soo baxdo oo la goosan lahaa meeshii waa laga waayay dadka marka haddii abaaraan laga taakuleeyo oo ay ka baxaan roobka duu yimaad xitaa waxaa adag in dadka noloshooda ay dib u soo kabato waayo galeydii hadda la goosan lahaa
meeshii way ka baxday waxay noqonaysaa marka tii hore in la isticmaalo tii hore la isticmaalo hadii la laho waxaa yar supply-ga yar dalabkiya badanayo marka price-ka waxa meesha waa ka dareemi kartaa inuu kor u kacayo maadaama price-ka doo kacana maciishadii kor u kacayso dadkii in badan ay ku dhibaatoonayaan marka hadda wabiga iyo dhibaatada u geysta beeraha hadda waxaan kaaga sheegay dhanka iyo xubuubleyda oo maxaan ku raadayay galeydii digirtii iyo dalagyadii kale haddii dhanka khudradda aan u imaado oo tusaale iyo geedmiroodka dabcan qudaar badan wabiga markuu baxayay dadka ayadoo heer kala duwan maraysa beeriye ku talaalnayeen beeriye ka baxayeen haba ugu badnaadaan maxaan ku dhahaa barbarooniga iyo waxyaabahaasi iyo maxaan ku dhahaay koostada iyo carrotka iyo intaas waa dareemi kartaa marka wabi markii la waayay intaasna biyo lama hayo micnaheeda biyo lama hayo biyo hadii la waayana suuqa wax tagay oo inta hadda aan sheegay in kale oo aan hadda aan meesha ku sheegin suuqiya laga weynaa suuqi marka laga waayo dadku waxay noqonayaan marka inay bedel isticmaalaan bedel hadii la waayana aan mar bari dhaweyd waxa maqlay bisbaas waxa jira la dhahay oo diyaarad lagu keenay imagine Soomaaliya oo bisbaas loo keenay diyaarad lagu keenay dhibaatada ay leedahay dabcan qofkii yaqaan oo damiir la ka damqan kara yani saameynta wabiga oo beeraha u geystay aan ka soo gudbo dalagyada inta badan oo adiga ilaa 3 bil waa laga kaba karaa ayaga sida yaanyada iyo waxyaabahaas waa laga kaba karaa ileen wabiga hadii inoo imaado ama roob oo noo doo 3 bil waa ka soo kaba karnaa laakiin saameynta jirta waxay tahay Soomaaliya waxay ku amaanan tahay yani caan ku tahay mooskana saan la socono asaga waxa waaye sanad u qaata markii la talaalo mooska ilaa 9 bil 10 bil noocyadiisa ku kala duwanaadaan moos hadda diibiyan loo waayay micnaheedu waxa way moos ma jiraayo in la soo kabtana waqti qaadanaysa in la soo kabtana sanad ay qaadanaysa marka waa dareemi kartaa nin beeraley ah dakhli uu ku bixinayo yani beertiisa inuu moos ku dhigo oo muddo sanad soo daba socday ama 8 bil soo daba socday hadii wabigan oo saan kaga tagay sanadka dambe inuu hadana ka soo bilaabo meesha maadaama annaga waxa way beeraleydeena wixii beerta laga helo baa lagu beeqaamiyaa oo ayaga dhexdooda la isku celceliyaa marka ilaahay naga soo gargaaraan leenahay saameyn badan u geystay cayaanada siiba kuwa faa'iidada leh ayay saameyn aan fiicnayn ku yeesheen biyo la'aanta wabi Shabeelle Dr. Maxamed Dayib Sheekh Abubakar oo ah hormuudka kulliyadaha beeraha iyo xanaanada xoolaha ee Jaamacadda Jazeera isla markaana ah gudoomiyaha xarunta cilmi baarista kheyraadka dabiiciga ah ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaan Sonrig ayaan weydiiyay saameynta biyo la'aanta ee dhinaca cayaanada dhanka dan ka fiiriyo entomology-ga cayaanka waxay saameynaysaa ugu muhiimsan hadda beeraha pollination ahaan saameynaya waa shinida marka waa waxyaabaha ugu muhiimsan hadhow oo geedihii isku tilaalaya ubaxii si ay miro u soo saaraan biyo la'aantan marka saameyn weyn ay ku leedahay dhankaas marka laga fiiriyo taasoo keeni karta hoos u dhac wax soo saarkii ayadoo dhibaatooyinkii kale ay la qabtay maxay ahayd oo nooleyaasha kale ay la qabtay haddana beerihii intii harsaneed ka badbaaday waxaa yaraanaya in ubaxii macnaha uu isku fertilization u dhaco ama pollination u dhaco ama ubaxii isku bacrimintiisii wax soo saarka markii aad hoos ugu dhacaya taasna waa dhibaato oo dheeri ah oo soo wajahaysa wabiga aad u guray ee Soomaaliya soo noqonaysa dhibaatadana waxa xal u noqon kara cilmi baaris dheer in lagu sameeyo oo sida hadda Sonrig oo xarunta kheyraadka cilmi baarista kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliyeed ay hadda ku talaabsanayso in wacyigelin dadkii laga siiyo oo khubaro badan lala kaashado oo hadhow laga soo saaro wax macluumaad sax ah oo looga hortagi karo wax bedel u noqon karo Soomaalida beeraheeda haday noqon lahayd biyaha wabiga dhulka ku jira macnaha in la soo saarto drip irrigation waraab nooc kale la adeegsado taasna waxay ku imaan kartaa kaliya cilmi baaris oo la iskaashanayo ganacsataha noqoto dadka lacagta leh inay kharash ku bixiyaan cilmi baarisnadaas bilaabanaya ama dadka ay maskaxda ku hayaan taasna waxay noqon kartaa xal maxaa yeelay ummadaha annaga nala mid ah jiro wabi aan dhaxbarin waxna beerta si ay u nool yihiin in la soo ogaado inta loo soo gudbiyo fikradaas waxaan u mahad celinayaa ka qaybgalayaasha barnaamijkan oo kale ah Saciid Maxamed Nuur iyo Dr. Maxamed Dayib Sheekh Abubakar sidii ay inooga aqbaleen inaan ku casuunay barnaamijkan barbaarta iyo beeraha daawadayaal waxaa xusid mudan barnaamijkan kiisa xiga inaan kaga hadli doono waxa keenay guritaanka wabiga 3 jilaal ee la soo dhaafay inagoo raadin doono khabiir aqoon u leh biyaha oo la faguro mawduucan
inta ka horraysa waa anigoo ah cabdishakuur ibraahim cabdi oo idin leh nabadgelyo iyo tasho oo tacbo. Inamber falano ang kubahi bahni anis barno inamber falano ang kubahi bahni